u raadsanaysaan inaa maaragtay gabdho kale aa guursataan iyagan waxay u rabaa inay rag kale guursadaan. marka insha allah u ogolaada kuna soo dhaweeya. haddii ay guursadaan gabdhaha maaragtay carruurta idin hayaan ha ku xumaynina. insha allah intaasaa idin leeyahay. guryihiinana waxaa idin leeyahay kuwa hadda guryaha haysta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وولاشين أيان لول أو إذن لسودة دواد أصحاب جنرال كي وكحرن عاو حان كهالله وحان لها فرين ودراي رق صوماليات ميلو البعد جوكتين مسؤولية دي عن كهالله رق صوماليات ويس عسلين وحاوي توبي جي وحكو سعودة رق صوماليات أو إس عسلي إيو وحيالا أسكو عسشين. hadda ka hor waxaa li rag wax badan markaan YouTube ka soo galayay aad waxaan uga soo hadlay dumarka Soomaaliyeed iyo maaragtay dhibaatooyinka aan leenahay. dumarkana aniga koow aan ka ahay, aniga aan ugu horeeyay dhibaatooyinka aan leenahay. waxaa la jiray ayaanay rag Soomaaliyeed maxaa saa ugu difaacdaa, rag Soomaaliyeed maxaa saa ugu difaacdaa. macnaheedu ma inaan dumarka maaragtay aan ku dhaganahay ama aan rag ku dhaganahay. dumar haddaan nahayna wixii dhaliil aan leenahay aan ku hormaray insha Allah. raggana insha Allah ayagu kuma sii fogaan doono sababtay tahay aniga dumar ahay. dumarkaana mar walba ku dhex jiraa, dumarkaana wax ka sheegi karaa. sababtay tahay nafteeda been uma sheegi karo oo maaragtay waxyaalahaas aad ugama sii hadli karo. ragga ka hadli karo, inkastoo ragga waxyaalaha qaar ay run ay ka sheegin. wadankan ragga joogaan kulli waa is wada casisheen in yar mooyaane. marka waxaan idin leeyahay nin is casilay oo xilkiisa asagaba iska casilay cid ku qasbi karta ma lahan. guryihiin isku day inaad kusoo laabatiin oo guryihiin aad kusoo noqotaan, aad xal raadisaan. waa ujeediin awlaadi faraha way ka baxeen. rag iyo dumarka isma wada haystaan. waxaa waaye guri kasta waxaa waaye dumarkii la ordaayo. hataa ninka ragga uu guriga joogo way yar tahay nin rag oo gurigiisa maaragtay intuu mas-uul caadi sidii dee aan nin iyo naag isqaba lagu yaqaano oo ninka asaga intuu guriga uu mas-uul ka yahay ay gabadhina ay tahay hooyo la qaba oo gurigeeda maaragtay ay maamulka hoose ay hayso. way yaryihiin qurbahan been haddii laisku sheegaynin. marka ragga Soomaaliya waxaan idin leeyahay horta waxaad tiraahdiin ninka ragga ah waa la xiniinsiibaa marka uu qurbaha yimaado. waxaa waay taas beenaa ku sheegteen. mas-uuliyadda marka hore idinka ilaahay idinku gurigaan mas-uul idinkaga dhigay. gabadhaan idinkaa mas-uulka ah, carruurta idinkaa mas-uulka ah, reerka idinkaa mas-uulka ah. marka ha u ogolaanina marka horeba aad guriga timaadaan. waxaan idinka yeelayn guri 6 iyo 5 ciyaal ah ku dhasheen oo maanta aad leedihiin gurigan aniga liima ogolo maaragtay nin rag inaan ka ah mas-uul aan ka ahay. mas-uuliyadeydii ah in la siiyo lii diidan yahay inaad tiraahdid kaama yeelayno. sababta ay tahay marka hore guriga aas-aaskiisa horeba haddii aad kusoo dhistay inaad guriga adiga mas-uul ah ka tahay. gurigan adaa lagu raaciyey, raaciga gurigan adiga waaye, adaa lagugu dabafeylayaa. oo marka horeba aad guriga markaad soo gashayba aad ku dhaqmi lahayd waxaa waaye waxba ma halaabi lahayn. laakiin ragga Soomaaliyeedoo waxaan u arkaa inaad furayaasha guryihiin aad ku furan lahaydeen oo dhan iyo sida maaragtay aad haweentiin ula dhaqmi lahaydeen oo dhanba inaad maaragtay idinka wada wareersan tahay. qurbaan markaa imaateena qaarkood iyaga ay ku qalqaaliyeen dumarkii inay maaragtay sabareedka qortaan, inay maaragtay ay dumarka usoo shaqeeyaan. maaragtay waxaasoo dhan waxaasna adoo nin raga oo 20 jir ah haddaa gurigaas maaragtay gabadhaas wada joogtaan iyo haddaa kala tagteenba carruurtaada inay ceyrta aadaan waaba qaladba. adoo 20 jir oo nool carruurtaada haddaa gabadha qabtidna u shaqayso, haddaa kala tagteenna u shaqayso. mar walba carruurtaada yihiin. laakiin rag Soomaaliyeedoo kuwii guriga joogeen wax faa'iido badan aad dumarka uma haysaan. kuwii tageenna hadda gabadha maalinta la furaaba carruurta badankood ugu dambeyso. carruurtaasna waxaa waay iyagana waa la furay. marka ilaahay ka baqa
waxaa leedihiin marka carruurta ay soo weynaadaan gabadhaas ama wiilkaas aniga hooyadiisa igu dirto ima soo xiriiriyo ima soo kaneeyo okay wiil maalinta hooyadiis aa kala tagteen kuugu dambeysay oo meelu iskuul ku garaajuweyn garaynaya aada tegin oo weligaa meelu ku xanuunsan yahay aada istaagin oo weligaa maalinna aadan caawinin oo inta ka dhaqaaqday ku kaloo gurigiis ka dhaqaaqay islaanta uu ka tegay carruurteeda intaad dul istaagtay reerkaasba aa ku mashquulsaneed gabadhaani ilmaheedana aa shuqul iyo shaqo ku lahayn see uu beri cunugaas kuugu naxariisanaya miyaa inaad da ku galayso aada ogeyn inaa xanuunsan kartid miyaana ku xisaabtamin cunuga inaa beri u baahanayso weynaana kuma xisaabtamaysid miya inaa adi dhasho kuma xisaabtamaysid miya marka hooyadii marka aragto inuu cunugii marka uu soo weynaado inuu hooyadiis uu difaacayo hooyadiis boodgaraynayo ama hooyadiis uu garab istaagayo aan dhehaysiin hooyadii aan ugu dirta maya hooyadii kumay dirin hooyada waa markuu iskuulka aaday tangeyso waa markuu dugsiga aaday tangeynayso oo kasoo qaadayso waa markuu arad u baahan yahay tan arad tirayso waa hadduu xanuunsan yahay tan xanuunkiisa og hadduu gaajaysan yahay gaajadiisa tan og akhlaaqdiisa tan ilaalinaysa oga tagteen waaye marka cunug ay intaasoo dhibaato lasoo martay ee iyada dugsiga geysay kasoo qaaday ee iskuulka iyada geysay kasoo qaaday ee tuurarka iyada geysay kasoo qaaday oo wuxuu arad u baahan yahay iyada u samayso oo hadduu xanuunsan yahay iyada ee la xanuunsan tahay ee habeenii maalin dul fadhiso oo akhlaaqdiisii oo dhan iyada ay ilaalinayso see marka aa u dhihi karta hadhow markuu cunugaas weynaado cunugaaba shuqul iyo shaqo ku lahayn hooyadiis ay ugu soo dirto xaqaa kugu soo diraa hooyadiis kuguma soo diraysa dabcan adiga ma fahmaysid xaqaa kugu diraayo waxaa waaye mana ku rabaayo hadda maalin dhaweed waxaa arkaya wiil dhahayo aabahey ma arki karaan aabahey indhaha ku arkaba aabahey malihi sababta ay tahay maalintan wuxuu dhahay aan iskuul ka garaajuweyn garaynayo intaas oo sano weligiis imuu imaan magaaladunu ila degaya weligiis shilna uu leeyahy imuu siinin hataa maalintaa gabadha guursanaya wuxuu dhahay adeerkeeba labada wuxuu dhahay aab baan dhihi karaa uu dhahay oo aabahey la dhashay hataa maalinta gabadha lii doonaya wuxuu dhahay asaa i xushmeeyey oo gabadha ii doonay asaa wuu bicaayay markaan la hadlay marka aabayaasha noocaas oo kale waxaan idin leeyahay ilaahay ka baqa gabdhaha haddaa kala tagtaan carruurtiin usoo noqda haddii kale meeshaan waxbaba markaas idiimaba yaal carruur aaba tuurteen ayagoo yaryar beri kamaan inaad ku doodaan ha isku dayina sababtay taa idinkaa maaragtay beertaan fashay beertan waxaa falataa kaaga soo baxaayo marka waxaan idin leeyahay ilaahay ka baqa sabareedkan aad guryaha u qoraysiin hadhowdi markay xaqi iyo balaayadii xaaraanta isku qarqaraxdo guryihiina laga saaro waxaa dhehaysa guryahana laga bixiyey waxaa guriga waa inaa idinka mas-uul ka noqotiin waana isfahmi laadin rag iyo dumarki laakiin easy aa ku fahmi kartiin dumarkiina haddii aa idinka dad daacada noqotiin gabdhaha soomaalida been idiima sheegayay waa gabdho iska masaakiin ah hooyooyinka soomaalida waa hooyooyin adag caruurtooda iyo gurigooda maasha allah karti u leh number one gabdhaha soomaalida waxay jecel yihiin haddii ay wax wanaag ku galaan wanaagooda inaa u aqoonsan tahay oo gabadha macnaha ay kugu fadhida nin yaqaana aad tahay waxay jecel yihiin in la qadariyo la ammaano waxay jecel yihiin in loo naxariisto gabadha haddii loo naxariisto la ammaano wixii wanaagay gashay maaragta u og tahay inay wanaagaas ku gashay waxay taa aad aqoonsan tahay gabadha soomaalida gabdhaha dumarkeena soomaalida lacag iyo hanti iyo ma fiiriyaan alxamdulilah waxay iska jecel in loo naxariisto bas iyo waa saddexdaas haddaa u naxariisatid waxay guddo iyo waxay gashan naagtaada aad taqaanid maxaa la tan aana ammaantid alxamdulilah waxaa wax kale dhan iyagaa iska imaanaan laakiin ammaan idinkuma haystaan naxariis dumarka idinkuma haystaan wax garab iyo subood idinkuma haystaan waa inaa ilaahay ka baqdiin oo guryihiin iyo gabdhaha usoo laabatiin carruurta haddaa kala tagteen oo hooyadii aada isfurteenna ma ahan inaa carruurta furteen mideeda kaleeto waxaan kaleeto oo idinku arkay raggiina soomaaliyeed gabdhaha markaa kala tagtiin gabdhahan oo haddii aad kala tagtaan ooba nin inuu guursada aad ka ximinaysaan kala tagana ilaaha baneeyey in lais guursadan ilaaha baneeyey ilaaha idin abuurtay ka baqa sababtay taasaa idinka aa u raadsanaysaan inaa maaragtay gabdho kale aa guursataan ee iyagan waxay u rabaa inay rag kale guursadaan marka insha allah u ogolaada kuna soo dhaweeya haddii ay guursadaan gabdhaha maaragtay carruurta idin hayaan ha ku xumaynina insha allah intaasaa idin leeyahay guryihiinana waxaa idin leeyahay kuwa hadda guryaha haystaan
waxaan leeyahay guryihiina furayaasha a ku furanaysaan gabadhaada qalbigeeda furaha ku furanaysa guriga markaan ku leeyahay waa gabadha qalbigeeda furaha a ku furanaysa nin walba ninku ka fariidsan waa ninka gabadhiisa yaqaano qalbigeeda furaha uu ku furanayo haysto ninkii kaleetana hadda uu ka dhumayn waxaa waay khalaas marba haddaada haysan furihii gurigaada a ku furanaysay waxaa qabowgii barafka banaanka kugu dilo waa haddaada naagtaada aadan garanaynin qalbigeeda furihii aad ku furanaysa aadan haysanin aadna maantana waxaa ku jiraysa heblaayo naagteeda saa ay tiri iyo hebelow islaanteedii anaa is haysanay iyo sheekh hebelow kaalna soo kala dhexgalin haddii laakiin adiga aad ku guulaysatid inaad furaha qalbigeeda aa haysatid waxaa waay sheekh inuu idin kala dhexgalan uma baahnid waalid iyo maaragtay gar inaa u fariisatiin uma baahnid alxamdulilah guushii oo dhanna waa gaartay alxamdulilah nin walbo waxaa waaye naagtiisa asaga hadduu fahmo no one kaleeto uu u baahan yahay ma jirto waxaan ay gabadha haddaa isku dhacdiin ninka ragga asaa xallin karo maba loo baahnaba qof in loo yeero asagaa xallin karo asaa fahmi karo wuxuu asaga xallin waayena uma maleynayo ina maarata labadooda waxay xallin waayeen qof kale inay xallin karaan dhibkaas wuu iska soo laalaabtaa gabdhahan waxaan leeyahay walaaleyga aan jeclahay laba mid ragga haddii ay rabaan inay mas-uul idinka noqdaan ogolaada in mas-uul nilaga noqdo insha allah inkastooba hadda ragga soomaaliyeed wax mas-uul noqonaya aysan jirin laakiin u ogolaada inay mas-uul idinka noqdaan mas-uuliyadda gabdhaha qaar iyaga ogoleen in mas-uul laga noqdo qaarkoodna hadda waxayba la-yihin wax mas-uul ka noqdo inta ugu badan waxayba la-yihin wax mas-uul ka noqday la-yihiin laakiin kuwa rabaan rag badanaa rabaan inay guryahooda iyo caruurtooda inay mas-uul ka noqdaan laakiin ay gabdhihi u diidan yihiin ragga mas-uuliyadda ha ka qaadina guriga wuxuu ku qurux badan yahay kala dambeyn iyo mas-uul inuu yeesho tan dumarkay ku socotaa sababta ay tahay haddii aad isdhahda anaa wax walba qabsan kara anaa isku fila anaa mas-uul iska anaa kan iska arrin waxaa jirta halmaha markay teen ager noqdaan weliba ay guriga rag joogaan ee raggaas ay waaweynaadaan derbi naga hor imaanayo oona soo xiri doono oona maaragtay raggaas rag ay u baahan yihiin hooyada keligeed hadday tahay ay ka talaabsan karin marka waxaan leeyahay mas-uul haddii ay diyaar u yihiin inay raggeeda ka noqdaan guriga madaxweynihiisa waa ninka ragga u daaya aysal wasaarehen waa idinka gurigana kala dambeyntuu ku wanaagsan yahay dowlad aan madaxweyne lahayn ma soconayso hadduu haysal wasaaraha dho anaa madaxweynihii haysal wasaare meesha ka noqonayo ma shaqeynayso haddaa adi dhahdo hooyo aabbaa meesha ka wada noqonaya haddii qadartii ay imaatay dee nimanka hadda idiin sheegaa mas-uuliyadda iska tuureen oo kale hadday imaad waa ku qasbanta hooyo ilaaha kula garab galo waa kuusoo duceyneynaa laakiin haddii ay mas-uul in laga noqdo diyaar loo yahay mas-uul hani laga noqdo u daaya in mas-uul in laga noqdo aniga ayaana ahay ma ihi dumarka raggooda mas-uulka ka ah aniga anaa mas-uul liga yahay alxamdulilah waxaana jeclaha in mas-uul liga ahaado waxaa waaye hooyada iyo aabahay iyo walaalahay ninkii intay isiiyeen dhowr 20 sano ka hor is guursanaa ilaa hadda la jooga asaana mas-uul iga ah asaana intuu nool yahay mas-uul iga sii ahaan doono waxayna ku qurux badan tahay gabadha in iyada mas-uul laga yahay alxamdulilah laakiin markaan kuleeyahay mas-uul ha laga ahaado hooyo maaha isdhiib dhulka isdhig maaragtay nimanka qaar markii la guryihiina mas-uul ka noqdo gabdhahay ku tumanayaan xaqooday ku ciyaarayaan saasoo kale ma ka wadi mas-uul ha lagaa noqdo markaan kuleeyahay waa inuu yahay ninkan nin mas-uulkaa noqon karo haddii kale mas-uul iga noqo ma dheheysid waa inuu ninkan maxaa adig ku qadarinayo dadkaada uu qadarinayo ma fahamtay wixii xaqaada uu iska ilaalinayo ilmaha xaqooda iska ilaalinayo saasuu mas-uulkaaga noqon karaa waxaa alxamdulilah kuwa mas-uul laga noqdo allaha naga wada dhigo inaa mas-uulna laga noqdo ku qurux badan tahay inaa anaga mas-uul noqono ma fiicino laakiin hadday danta ku baddo waa noqone oo maaragtay aaweysid waa noqonaysaa guriga mas-uul waa ka noqonaysaa hooyo aabana waa ka noqonaysaa marka insha allah alxamdulilah waxaa rajeynayaa inaan ragga soomaaliyeed ee guryahooda usoo laabtaan mas-uuliyadda ay dhigeen ay usoo laabtaan insha allah mar walbana waxaan idin leeyahay annaga xal gaarno haddee raggii dumarka annaga aan heshiino waxaawaa caruurtan insha allah xal waa u heleynaa waxaawaa beryahan waxaa batay caruurtii daroogada isticmaalaysa oo ku dhammaanayeen aad u barteen siiba maraykanka ilaahay waxaawaa hanoo gargaaro oolaadaasna allaha noo soo hadeeyo inta ku dhimatana allah u naxariisto inta hadda u jirana allah caafiyo insha allah inta xabsiyada ku jirtana xabsiyada allah maaragtay kasoo bixiyo waalidiinta maaragtay rag iyo dumarba kuwa isfahma allah naga dhigo wadan waxaan joognaa qurbaa cadowaan wadan gaalaan joognaa cadowaan gacanta ugu jirnaa inta isfahamta allah naga dhigo ragga soomaaliyeed
ugu dambeynta waxaa idin leeyahay gabdhaha walaalihiin u naxariista haddaa xitaa kala tagtaan halaisku naxariistaa idin leeyahay barnaamijka noo sheer gareeya wixii fariin commentiga iigu soo reeba like-ta saara asxaabta igu cusub dad cusuba hadda igu soo biireen aada u badan waa arkay walaashin ayaan lul waxay idin leeyahay soo dhadhawaada gabdhihii wiilalba iisoo dhawaada commentiyadiina quruxda badan dacooyinka iisoo qortiin waa idinkaga mahad celinayaa 100% aada u mahadsantihiin madaxa dushiisa ay saarantihiin waxaa waay la-aantiin lama socon karo la-aantiina meel lama gaaraayo waxaa waaye mahadda ugu horeysa ilaah iskale talabaadna idinka iskale waa mahadsantihiin 100% insha allah dadka cusub waxaan idin leeyahay subscribe gareeya gambaleelka furta saa u aragtiin walaashin ayaan lul waxyaalahay soo geliso sidaa idiin sheegaya wacyigelinta insha allah kama daaleyno hooyooyin haddaan nahayna waa inaan dadka wacyigelinaa dadka dhibaateysanaa caawinaa insha allah hadduu ilaahay yiraahdo si aan anagana insha allah guryaheena iyo awlaadeen ilaahay noogu barakeeyo aan isku naxno aan isku naxariisan ilaahay markaasuu noo naxariisan doonaa insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu